السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada qaaliga ku soo dhawaada kanalka Shaaf Production. waxaan mowduucana maanta uga hadli doonaa xigmadahaas oo aan filay inaad ka heli doonto ama ku qanci doonaan. intaan u gudgelin mowduucana maanta, fadlan haddii aad ku cusub tahay kanalkan, subscribe saar, muuqaalkan like saar, ra'yigana hoos igu reeb. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر سلا فضلا. xigmadda ugu horeysa ee barnaamijkan ku soo qaadanayna ayaa ah wixii si fudud lagu helo si fudud ayay ku baxaan. xigmadda labaad ee aan rabo inaan idila wadaago ayaa ah caqabad kasta oo kugu timaada waxay kugu tilmaamaysaa waddadii aad ku guulaysan lahayd. xigmadda saddexaad ee aan rabo inaan kula wadaago ayaa waxay odhanaysaa qofna qalbigiisa dhaawicin, sababtoo ah qalbiga waxaa dhaawici kara hal eray oo si qaldan loo yidhi. xigmadda afaraad ee aan rabo inaan kula wadaaga ayaa ah nimcada aad haysato waxaad si dhab ah u dareemaysaa markii aad weydo. xigmadda shanaad ee aan rabo inaan kula wadaaga ayaa waxay noqonaysaa lacag wax kasta kuma heli kartid, ku qanac waxa aad haysato, waxaad noqonaysaa qof faraxsan mar walba. xigmadda lixaad ee aan rabo inaan kuu faa'iideeyo ama aan kuu sheego ayaa waxay odhanaysaa sida tan: si kasta uu dadaalkaaga u liito, marnaba midhihiisu eber ma noqdaan. xigmadda toddobaad ayaa ayadana waxay odhanaysaa qofkii dharagta kugu jecel baahida uu kugu nacaa, laakiin waxaa marnaba ku nici doonin qofka baahida kugu jecel. xigmadda siddeedaad ayaa ayadana odhanaysaa haddii aadan sabab u noqon karin qof dhowlcandeyntiisa, sabab ha u noqon qof ilmeyntiisa. xigmadda sagaalaad ee rabo inaan kula wadaaga ayaa waxay odhanaysaa saaxiibkaaga xun wuxuu uu ku horsaydaa mustaqbal liita. xigmadda u dambaysa aan rabo inaan kuu sheego ama aan kuu faa'iideeyo ayaa waxay odhanaysaa aamusnaantu waa nabadgelyo, sababtoo ah haddii aad hadasho waxaa laga yaabaa inaad qalad gasho. waa hagaag, waan filayaa asxaabta inaad dhammaantiin ka wada heshaan xigmadahan oo aadna ka faa'iidaysan doontaan. tani intaan ku kulmi doono xigmado nuucan oo kale ah, waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo horumar wacan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.